maxamed aadan maxamed cali oo loo garan og yahay gaduudo ayaa loo soo xiray dilka Allah u naxariistay marxuuma Saciid Xasan Shiiqow oo 29kii bishii Abriil ee sanadkan kadib markii xilli galab ah bishii Ramadaan ee la soo dhaafay risaas uu furay uu ku dhintay marxuum Saciid Xasan Shiiqow oo afur u soo raadsaday xerada agoonta booliiska oo raashin lagu qaybinayay bulshada kaalmada u baahan 25kii May ee sanadkan ayay ciidamada amniga ku wareejiyeen eedeysanaha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida isla xilligaas ayuu garsoorka ciidamada ogolaaday in xabsiga dhexe loo gudbiyo garsuga ahaan baaris dheeraad ah oo ay wax ugu weydiinayeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida marigadii goobjooga u ahaa dhacdadan iyo ehelada marxuumka kadib bilowgii bishan ayaa xafiiska laga ogolaaday fadhigii ugu horeeyay ee maxkamad qaadista dable maxamed aadan maxamed cali oo loo garan og yahay gaduudow oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka 143aad ee guutada 14 Oktoobar qareenada u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka codsaday in laga qaado magta marxuumka maadaama uu qiraal yahay fadhiyo kala duwan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku xukuntay maxamed aadan maxamed cali oo loo garan og yahay gaduudow dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Saciid Xasan Shiiqow sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalbanayo racfaan bila mirabeerayhoon Kamal TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed